Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada warbixin aan ku eegayno doorka tiknoolajiyadda ee la dagaalanka COVID-19. Inkasta oo uu sii dhamaanayo guri ku jiritaanka iyo iska ilaalinta cudurka corona, ha yeeshee dadka waxaa lagula talinayaa weli inay guryaha joogaan si uusan cudurka u sii faafin. Waxayna ku mashquuleen adeegsiga tiknoolajiyadda casriga iyo adeegyada ay bulshada ku xiriirto. Tiknoolajiyadda ayaana qaybteeda qaadanaysa si dadka ay u dareemaan in nolosha guriga aysan caajis ahayn. ma ahan oo kaliya in tiknoolajiyaddu ay nolosha malaayiin qof oo karantiilan ay ka dhigayso mid sahlan, balse sidoo kale waxay gacan ka geysanaysaa la dagaalanka fayraska. Muuqaalkan waxaan idinku soo gudbinayaa 5 qaab oo ay tiknoolajiyaddu uga qayb qaadanayso la dagaalanka COVID-19. Daawasho wacan. Tiknoolajiyadda casriga ayaa sahlaysa in nolosha karantiilka uu noqdo mid fudud iyadoo isla markaasina xakamaynta cudurka COVID-19 ay noqonayso mid sahlan. haddaba 5 hab ee aan soo sheegnay oo tiknoolajiyadu uga qayb qaadatay la dagaalanka COVID-19 ayaa waxaa ka mid ah hiddo-sidaha. Toddobaadyadii ugu horreeyay ee fayraska, Shiinuhu wuxuu keenay hiddo-sidaha cudurka COVID-19 iyadoo la adeegsanayo kombiyuutar ayaa qaab online waxaa loo dhammaystiray isku xigxiga hiddo-sidaha, waxayna saameyn muuqata ku yeelatay shaybaarada cilmi-baarista ee adduunka oo dhan, iyada oo la sameeyay tijaabooyin isku dhafan oo fayras ah si loo dhiso nuqulo ka mid ah hiddo-sidaha. Tani waxay ogolaatay in daweyn cusub la tijaabiyo, xitaa tijaabooyin lagu guuldareystay waxay soo bandhigeen tilmaamo muhiim ah kuwaasi oo cilmi baarayaasha ku hagaya meesha ay tahay inay diiradda saaraan. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddii meel ruux cudurka qaba uu taabtay uu ruux caafimaad qaba taabto, waxaa suuragal in cudurka uu sidaas ugu gudbo qofkii caafimaadsanaa. Sidaas darteedna, dowlado badan ayaa adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska si loo buufiyo meelaha ay bulshadu ku kulanto. Waxbarashada. Kadib markii la xiray goobaha ay bulshadu ku kulanto sida iskuulada iyo jaamacadaha, ma sahlana in guryaha la iska joogo iyadoo waxbarashadii ay hakad ku jirto. Dhibaatada ugu weyn ayayna soo wajahaysaa waalidiinta oo carruurtooda ay guryaha joogaan hawl la'aan. Ha yeeshee jaamacadaha iyo iskuulada ayaa u jeestay in ardayda ay waxbarashadooda sii wataan iyagoo qaab online oo maqal iyo muuqaala ay wax ku baraan ardayda iyagoo isticmaalaya barnaamijyo taleefanada iyo kombiyuutarada lagu isticmaalo. Isku xirka dadka. Karantiilnimada qasabka ayaa carqaladeysay nolol maalmeedka dadka ayaana u kulmi kara si qayaali ah iyagoo adeegsanaya aaladaha bulshadu ay ku xiriirto si ay u wada sheekaystaan maadaama guryaha la wada joogo. Sidoo kalena dadka ku kala mashquulsanaa nolol maalmeedka caadiga ahaa ayaa online-ka iska helaya si ay isku bariidiyaan isuguna warbixiyaan. Madadaalo. Nolosha karantiilka waa mid caajis ah, laakiin ma aha haddii aad haysato wax aad ku madadaalato. Dad badan ayaana ku badanaya isticmaalka aaladaha lagu madadaasho internetka. Aaladda filimada laga daawado ee Netflix ayaa soo bandhigtay sare u kac aad u ballaaran oo 40% ah dadka ku xiran kadib markii ay dad badan u jeesteen inay isku madadaaliyaan filmaanta xilliga karantiilka. Sidoo kale geemka dagaalka ee PUBG loo yaqaano ayaa qayb weyn ka qaadanaya inuu madadaaliyo dadka karantiilan, iyagoo shirkadda soo saartay geemka ay sidoo kale sheegtay in ciyaaryahano badan ay ciyaarayaan si ay ugu madadaashaan xilliga karantiilka.